haddii aan maaragtay si kooban aan uga hadlo nuxurka buuggayga oo ciwaankiisu uu yahay habdhigaalka af Soomaaliga guud, midayntiisii, horumarintiisii iyo casriyeyntiisa. Buuggan ujeedada aan u sameeyay midda hore waxay tahay si loo mideeyo habdhigaalka Soomaaliga oo sanadihii 72 ilaa 90kii uu ku socday maartay hab socod oo midaysan ayuu ku socday. burburka markuu dhacayna waxaa soo baxay maartay in afkii la iloobay ama faraha laga qaaday la adeegsanayn. waxyar kadibna markii baahi timid in afkaan la adeegsado ayaa cid walba sidee doonto ay wax u qoraysay. marka si oo loo mideeyo oo ujeedada ugu weyn waxay tahay laba. waxaa dadka badankood dad badanaa waxaa jira ay ka doodaan waxyaabo mar hore midoobay, kaas inaan soo bandhigo oo waqti aan la iskaga luminin, iyo kuwa qabya ah maaragtay oo u baahan in la mideeyo ayaa maaragtay aan isku dayay. kuwaasoo waxaan igu dhaliyey su'aalo badan oo aan maqlo maaragtay la isweydiinayo, baraha bulshada la iska weydiinayo. kuwaasaa igu dhaliyey oo kala duwanaanta habdhigaalka dadka maaragtay bulshada ay u adeegsadaan in meelaha qaarkood xeer loo yeelo oo midaysan, si aanan u dhicin nimbe si maaragtay uu qoro xariiqimo loo dhexaysiiyo oo xad aan lahayn, iyo maaragtay xuruufo oo iyagana maaragtay habdhigaalkoodii higaada oo aad iyo aad u liidato. intaasoo iyo wax badan oo macluumaad ku saabsan sidii loo horumarin lahaa afkaan, loo mideyn lahaa, loo casriyeyn lahaa. casriyeyntu waa erey bixinada, waa waxyaabaha afka casriyeyn kara, suurtagelinaya in afka lagu gudbiyo fikradahan Soomaalida hore aanan u lahayn. marka intaasoo dhan waxaan isku dayay maaragtay intii karaankeyga ah inaan wax ka qabto, oo jecelahay in maaragtay la raaco wixii oo khaldan ama maxaan ku idhahdaa aan ilduufay. waxaan ka rajaynayaa intii aan ilduufay waxaan rajaynayaa maaragtay in dadka u dhuun daroor ama maaragtay aqoon gaar u leh cilmiga afka iyo afka guud ahaanba in ay sii turxaan bixiyaan, waxna ku sii kordhiyaan. haddii fikradahaydu ay noqdaan kuwa dadka u cuntamana waxaan rajaynayaa in la qaato, iyadoo meel la iska dhigayo meel gaar ah caatifada lahjadeed. hotayda maxaa loo raaci waaye afka guud waxaan ula jeedaa afka marka af shisheeye lagu yiraahdo, wax af shisheeye lagu yiraahdo language standardkan ah, afka standardka ah. marka Soomaaliga waxaan doorbiday in aan niraahno afka guud, afka Soomaalida maaragtay wada fahmi karto, oo ma aha Soomaalida dhan ay lahjada ku hadlaysay, laakiin dhagahooda ku batay ama indhahooda ku batay, akhriskooda ku batay. midka in la isku raaco, meelna la iska dhiga caatifad maaragtay lahjadeed. afkaan marka in loo wada gurmado, loo hiiliyo ayaa maaragtay aan jecelahay. insha Allah jiilka iga dambeeya iyagana inay sii wadaan wixii maaragtay aan intaan waday ayaan rajaynayaa. wabillahi tawfiiq.